labadii ilaa saddexdii maalmood ee u dambeeyay waxaa xiisad muran dhalisay oo u dhaxaysay Jabuuti iyo Somaliland ay ka taagneed deegaanka Lowyacad ee xuduudda labadaasi dal taasoo ka bilaabantay dhisme ay wasaaradda maaliyadda Somaliland ka bilowday soonaha kooban ee u dhaxeeya Jabuuti iyo Somaliland waa deegaanka Lowyacad. haddaba inkastoo ay xiisadani ahayd mid cusub oo maalmo taagneyd ma jirin cid ka hadashay labada xukuumadood ee Somaliland iyo Jabuuti waxaana si aan wax uga ogaano xogta iyo xaaladda dhabta ee ka jirta deegaankaasi aan la xiriirnay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxaana noo suurta gashay inaanu helno agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdinuur Axmed Guray kaasoo aan ugu horeyn su'aalo ay ka mid ahaayeen bal inuu faahfaahin naga siiyo xaaladda rasmiga ee hadda ka taagan deegaankaasi Lowyacad ee xiisadu ka taagan tahay iyo tallaabada ilaa hadda ay qaadeen Somaliland ahaan ee ku aadan deegaanadaasi iyo su'aalo kale. waxaana agaasimuhu inkastoo uu ka gaabsaday inuu bixiyo jawaab waafi oo ku aadan su'aalahani uu sheegay in hakad la geliyay dhismihii Somaliland gaar ahaan wasaaradda maaliyaddu ay ka waday deegaanadaasi in la dejiyay xaaladii deegaankaasi oo hore ciidamo ka soo jeeda Somaliland iyo Jabuuti isku hor fadhiyeen isagoo intaasi raaciyay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta safar ugu tagay dalka Jabuuti oo arintani kala hadli doono mas'uuliyiinta dalka Jabuuti. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in dad badan ay isweydiinayaan madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Jabuuti arintani ma ka wada hadli doonaan oo xal ma ka soo saari doonaan xaaladda iyo xiisadda ka taagan hadda deegaanadaasi si degdeg ah ma loo qaboojin doonaa oo hakad ma loo gelin doonaa iyo halka uu xal ku dambeyn doono oo dad badan isweydiinayaan. وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال ورركب مقبهية عالمك بداستان فور تي في هرقيزة.